dhegaystayaal mar hore sidaad iga maqasheen haba tiro yaraatee digashadu waxay ka mid tahay ujeeddooyinka maansada soomaalida si baahsan tusaale loo yaqaana waxaa inoo noqon karta tixuu mariyey hormuudkii maansayahanada soomaalidu gabyaagii weynaa sayid maxamed cabdilla xasan oo isagu malahayga ugu eraya adkaa intii cadowgooda ku digatay maxayse ahayd sababtii uu tixdaas u tiri xilligii ay daraawiish dagaalamayeen ayuu ingiriisku waqooyiga ka abuuray ciidan sida booliska u shaqeeya oo awrlayliyan ku howlgeli jiray rakuubley ayaa la odhan jiray shaqadii loo xil saaray waxay ahayd kolba ciddii maamulka gumaysiga ka hor timaada inay caddibaan tolalka oo kabanna ay daraawiishta kaga gadaanaadaan ciidankaas oo xaruntiisu ay burco ahayd waxaa ka reebanaa daraawiishta inay dagaal toos ah la galaan madaxna waxa uu ahaa sarkaal si aada u dhiiranaa maamulkana arrimaha siyaasadda ugu qaybsanaa soomaali iyo shisheeyaba dadkii isaga soo gaaray siday ku warrameen wuxuu ahaa nin aad isula weyn dowladdii soo dirsatay awooddeedu ay hodday kuna shaqayn jiray dadka inuu xoog wax ku yeelsiiyo xataa soomaalidii xukunkooda ogolayd ma ahayn nin u jixinjaxa wuu dhici jiray isaga oo uga dan lahaa inuu tuso cududooda in aan sina lagaga hor imaan karin maalintii dambe ayaa ciidan xoog leh oo daraawiishaya agagaarka burco geelal fara badan ka qaaday xagga xarumahoodiina ula kaceen isla markiiba cidihii geelashaa lahaa ayaa waxay u qayla dhaansadeen rakuubleydii ingiriiska dabadeedna 9 Agoosto 1913 ayay labadii ciidan fooda isku dareen kurta ina dulmadoobe oo koonfur bari burca uga aadan halkaasoo ciidankii gumaysiga lagaga ilhelay lagagana dilay askar aan yaraynoo kii madaxda u ahaana uu ku jiray sarkaalkaas oo maanta duubcaddii sayidka gacantooda ku baxay waxaa la odhan jiray Richard Corfield ama Cofield siday soomaalidu u taqiin ma runbaa ma war aan jirinba ma caddayn karayno hase ahaatee qaar ka mid ah cilmi baarayaasha taariikhda soomaalidu siday qoreen dagaalyahanadii daraawiishtu Cofield markay dileen kama ay tegiine gacanta iyo madaxa ayay ka jareen dabadeedna taleex iyo xaruntoodii ayay u walwaaleen waxay rabeen sayidka iyo daraawiishba inay ka farxiyaan falkoodaasna ay daliil cad uga dhigtaan in Cofield la gabawaray oo maalintaas kadib uu uun aakhiro yahay walaadkii markuu hubsaday inay dhab tahay oo Cofield uu mood yahay waatuu isla goobtii ka tiriyey gabaygiisii soomaalida dhexdeeda sida weyn ugu baahay iyada oo aan lagu dambaabayna lagu tilmaami karo boqorka maansada digashada waa gabaygii fariinta u ekaa ee uu meydkii sarkaalka u sii dhiibi jiray si uu ugu warbixiyo daraawiishtii allaysatay oo waa siday la ahaydee markaas jannada eebbe ku warsugaysay isaga oo sidii ruux nool fariinta ugu xambaarinaya ayuu afka ugu tirayaa wixii uu ku jawaabi lahaa kolkuu aakhiro tago kolkii la weydiiyo sidii isaga loo dilay markuu sakaraadayay ee uu baryootamayay sidii loola dhaqmay goortay ruuxa weysiiyeen wixii lagu falay iyo siduu ciidankiisii u guuldaraystay wuxuu yidhi adaa Cofilow jiitayaan dunida joogayne adigaa jidkii lagugu wadi jimicla'aaneede jahannama la geeyow haddaad aakhiruu jahato nimankii jannuu kacay warbay jirin shaaleeye jameecooyinkii iyo haddaad jawhartii aragto sida eebbahay kuu jirrabay mari jawaabteeda daraawiish jikaar nagama dayn tan iyo jeerkii dheh ingiriis jabyo waxa ku dhacay jacaya baaruud dheh waxay noo janjuunteenna waa jibasho diineed dheh jigta weerar bay goor barqa'a nagu jiteeyeen dheh anigana jigray ila heleen shalay jahaadkii dheh jeeniga hortiisay rasaas igaga joojeen dheh jiiraayaday ila dhaceen jilix afkoodii dheh siday kuugu jeexeen magliga jararacdii sheego bilaawuhu siduu kuu jarjaray jiirarka u muuji nafjeclaysigii baan u idhi jaallow iga daadhe jaljaleecadii baa wadnaha jeex ka soo ruqay dheh jeedaaladii bay indhuhu kor u jillaadmeen dheh jimic kagama helin tuugmadan jidiyey ruuxii dheh markaan juuq idhaahdaba afkay
iga jifeeyeende dhaaxaan jaraacaye dheg baan jaraq la ii siinde. inkastuu u badan yahay tilmaanta hoog iyo ba wixii koofil goobtaa ka raacay iyo meydkiisii siduu ku dambeeyey, haddana gabayga gunaanadkiisu waa dacaayad uu sayidku uga jeeday magaca daraawisheed inuu kor ugu qaado, dadka laga yaabo maantaa kadib inay soo hawaystaanna uu ku baqdin gelinayo. markaas buu yidhi isagoo weli meydka koofil la sii ballamaya, goortaan jareerana gafoo nolol ka jaan qaaday, sida janannadii hore tashigu igu jaguugnaa dheetaradii jinnigu ii hormaray jaasadeed helay dheh. jiidaha xanuun kale markii la igu jeeraashay, jibaadka iga soo baxay dadkii jiifka qaban waadhe, markay rubaddu jaw tiri orbay iga agjiibsheen dheh. jirkaygii bahal baa cunoo jiitay hilibkii dheh, jurbigiiyo baruurtii dhurwaa jugux ka siiyaadhe, jiljillada iyo seedaha tukay igaga jaadeen dheh. haddaan la isjikaarayn tolkay laga jilroonaadhe, weligood waxaa lagu jaraa jirib dhig duulaandhe, daraawiishi waa jibindhowga iyo jowga soo bixi dheh. gabaygaas oo digasho iyo guul kufaanba isugu jira ayaa wuxuu 10 sano ka mid ahaa maansada soomaalida kuwa ugu caansan. soomaalidii afkeeda tiqiina ay ku jidboon jireen, inkastoo lagu celceliyana aysan ka xiisa dhici jirin. ha yeeshee nin ingiriisa oo taariikh bulshadeeda soomaalida aad wax uga qori jiray ayaa isla gabaygaa qoonsaday intuu jeer ka faallooday. marka hore wuxuu qiray fan iyo farsamo ahaanba inuu yahay gabay suugaanta caalamiga ah meelaha ugu sarreeya ka geli kara. wuxuuse raaciyey inuu yahay naxariis laawe, dugaagnimo ka muuqato, dareenka aadaminimaduna uu ku yaryahay. faallada dambe ee qoraagaas ayaan beri waxaan u sheegay darwiish aanu nolol ku soo gaaray. taagnaana 9 Agoosto 1913 maantii sarkaalka goobtaas lagu dilay. markaas bay caro degdegay foolkiisa soo kortay, indha cascas oo ay da'du fogaysay, aadna moodo inay kaa dusayaan intuu igu eegay ayuu yidhi, oo maxaad ugu oran weyday, muxuu koofil beer iyo dulmadoobe ka soo doonay. waxay ahaayeen nimankiina aday ku wada tilmaanaa in shisheeye u taliya aan ogolaan jirin, dalka inay iyagu leeyihiinna dhab u rumaysnaa. hadalkaasna anigu malihii waxaa iska leh saraakiishii gumaysiga ee goobihii dagaalada ay isku arkeen. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo.